سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب قيمها بدن كسو دوادا جنالكا عرط عاشق يساحب عبد الله محمد عبدي CMC. maanta waxaan idin wadaa dardaaran ku socdo ragga Soomaaliyeed oo qoray qoraaga caanka ah Xudayfi Cabdiraxmaan oo idiin soo tabinayo saaxiibkiin Cabdullaahi Maxamed Cabdi CMC ay la socda wuxuuna u dhacayaa dardaaranka noocan ninka xaaskiisa u sameeya 24 kan arrimood waa ninka xaaskiisa u noqda boqorka ay dunida ugu jeceshahay. haddaba ragow ka faa'iideysi wacan qodobka koowaad xilliga aad guriga dib ugu soo laabato ugu horeyn raadi halka ay ku jirto xaaskaaga kadibna laabta geli ama habsi. qodobka labaad si fog uga warayso xaaladda maalintaasi ay ku dhammaysatay su'aalo badan ka weydii haddii ay jiraan wax ku soo kordhay maalintaasi murugo ama farxad intaba. qodobka saddexaad xoogga saar oo samee in aad la murugoto xilliga ay xanuunsanayso ama ay murugo dareemayso. qodobka afaraad dhunko ama shumi macsalaamay xilliga aad guriga ka baxayso. qodobka shanaad xabadka geli ama habsi ama qoorta u saar ugu yaraan 4 jeer maalintii. waan ku jeclahay ku dheh ugu yaraan 2 jeer iyo wax ka badan maalintii. qodobka toddobaad u mahadceli marka ay hawl kuu samayso ama ay kuu qabato. qodobka sideedaad xilliga ay cuntada kuu diyaarinayso ammaan habka wax karinteeda. qodobka sagaalaad ku boori oo u muuji mar waliba in aad la dhacsan tahay muuqaalkeeda. qodobka 10aad alaabtaada muhiimka kuu ah adiga hagaajiso oo ha ka sugin in ay iyada kuu hagaajiso mar walba. qodobka 11aad haddii maalin ay daalan tahay ama mashquulsan tahay saaciday oo hawsha la qabo ama wada qabo sida in aad iskuulka carruurta u kaxayso ama guriga hagaajiso ama cuntada aad kariso. qodobka 12aad xoogaa nasasho ah ula bax bannaanka magaalada iyadoo carruurta aan idinla socon. qodobka 13aad la soo hadal marka aad shaqada ku maqan tahay oo weydii xaaladdeeda xitaa wax kale haddaad weydo ku dheh oo u muuji waan ku jeclahay waana kuu xiisay macaanto. qodobka 14aad xilliga aad guriga ku soo laabato oo aad aqrinayso wargeyska ama aad daawanayso TV-ga si ugu yaraan 15 daqiiqo si aad iyada uga dhagaysato waxa ay ku hayso. qodobka 15aad marka aad la hadlayso gacantaada saar qayb ka mid ah jirkeeda sida garabka ama dhabarka una muuji in aad dareen u haysid. qodobka 16aad la soo hadal oo ku wargeli haddaad maalintaasi soo dibdhacaysid oo aadan imaanaynin wakhtigii aad guriga iman jirtay. qodobka 17aad marka aad safar magaalada ka baxsan aad galayso la soo xiriir una sheeg in aad si nabad ah ku gaartay magaalada aad doonaysay isla markaana si taleefanka laga heli karo waayo aad bay kuugu murugeynaysaa inta aad ka maqan tahay. qodobka 18aad u qorshee maalmo aad magaalada u baxaysaan hana dhibsan haddii ay soo daahdo sida haddii ay lebiska ku soo daahdo ha ku oran naga soo dhaqso waan daahnay waayo waxa ay isku qurxinayso waa adiga. qodobka 19aad waxa u baahan in la soo sameeyo ee guriga yaallo ama la doonayo in la keeno liis ku qoro isla markaana keen ha ka sugin in ay iyada kugu soo wargeliso. qodobka 20aad kaga farxi hadiyado yaryar xilliyada qaarkood sida tiro ubaxyo ah shukulaato ama macmacaanka noocyadiisa kala duwan ee ay haweenku jecel yihiin ama wax kale oo ay u baahan tahay sida waxa lagu xasuusto munaasabadda guurkiina jacaylkiina dhalashada iyo wax la mid ah. qodobka 21aad
haddii ay xanuunsan tahay weydii xaalkeeda mar waliba oo garabkeeda noqo isla markaana xasuusi xilliga ay daawada isticmaali lahayd si aysan u ilaabin qodobka 22aad xilliga jiifka ama hurdada ha ka dib dhicin oo hal xilli la gal sariirta qodobka 23aad haddii ay wax ku weydiisato kadib ama ka ogolow laakiin ha canaanan oo ha ku qaylin oo ereyo shucuur kale ku reebayo ha ku oran qodobka 24aad haddii aad dhaawacdo shucuurteeda isbarbartaag oo ku dheh waan ka xumahay macaan dhaawacaan ku geystay kana aamus una daa in ay fahanto shucuurta kaa muuqato farintan waxay ku socotaa ragga ammaanta kala duldhacay hablaha tigreega ah ee xaaslayaasha u badan ogow hablaha Soomaaliyeed ee aan isku isirka nahay wax gaara dunida kuma noola hablow qormadan idinka iska leh ee nagu dhiirigeliye share like haddii aad channelka ku cusub tahayna fadlan subscribe saar channelka waad ku mahadsantihiin dhegaysiga iyo daawashada muuqaalkan waa saaxiibkiin cabdullaahi maxamed cabdi CMC oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo